guurti maxamuud jaamac xuseen oo ka mid ah guddida mid ka mid ah beeraha dega gobolada Sanaag iyo Togdheer ayaa waxa uu taageeray hadal maalintii shalay ka soo yeedhay Caaqil Cali Maxamed Ducaale afhayeenka guddidaasi geesta kale waxa uu ka soo horjeestay furista urur siyaasadeedada isagoo ku tilmaamay in waqtigan loo baahnayn in urur la furo isagoo arrimahaasi iyo arrimo kale ka hadlay waxa hadaladiisii ka mid ahaa waxaan halkan ka qabanayaa shirka jaraa'id oo ku saabsan waxaan maqlayay bariyahan dambeeto khilaafaad badan oo ka taagan asxaabta iyo barnaamij noocaas taamarka maadaama aan ahay muwaadil inaan garagtidayda kaga hadlo ayaan shirkan jaraa'id u qabtay anigoo ah waayeelka dhaqanka Muuse Ismaaciil kuna hadlaya afkii garxijis iyo taladii garxijis waxaan leeyahay oo kaga hadlaya barnaamijka Somaliland waa dawlad imika waxay leedahay sharci waxay leedahay dastuur kaasoo xadiday wax kasta oo khilaafaad ka dhaco doorashadu waqti bay leedahay madaxtooyadu xadidan asxaabtu waqti bay leedahay ururada in la furo oo iyana ku taariikhaysan baarlamaanku waqti buu leeyahay dastuur sidaa u soo dhigan bay leedahay waxaan leeyahay yaan lagu tuman dastuurkii iyo sharciga Somaliland waxa laga daayo khilaafaadka iyo dhibaatooyinkan khalkhalka inaan u baahnayn waxaan taageerayaa saaxiibkayga iga horeeyay Caaqil Cali Maxamed Ducaale oo aanu saaxiibanahay isku guddinanahay oo guddida Muuse Ismaaciil aan wadanahay waxaan leeyahay halka kaga soo dhawaanayaa dastuurka hal la ilaaliyo oo sharciga hal la ilaaliyo oo mid walba waqtigiisii hal lagu jaangooyo oo wax dheeraad oo khalkhal dadka galiya yaan la keenin taantaasan kaga tagayaa hadalkayga badin maayo waxaan ku darayaa waxaan maqlaayay qolo garxijiska ah oo meelaha ka qaylqaylisa iyana waxaan leeyahay reerku han buu leeyahay hanka uu maanta leeyahay urur maaha qorshe kale maaha waa madaxtooyada iyagana waxaan leeyahay waa inaydin wadada hanka reerku leeyahay qaadaan meel kale adimka u sacabtaan wax dani kuma jirto iyagana intaasaan leeyahay hadalka hadda intaasaan kaga tagayaa wabillahi tawfiiq waxaan kaloo halka ka tilmaamayaa xusbiyada ururada garxijis ururada isaga bixiya isagana furta sida wadani uduba ka horeysay waxaan raadayay ucud mid walba iyaga ka soo shaqeeyay xilku inuu meerta yahayna waa og yihiin si sharaf iyo cadaalad ayay markay furtaan kadibna cidii ku mudan u gudbiyaan taana waxaan leeyahay maanta reerku hawshiisu waa sidaa uma baahna ururo hanka uu leeyahay waa madaxtooyo taana wuu ku socdaa halbeegeeda iyo habkeedii way wadaan yaan laga hortagin oo cid kasto annaga naga mid ah oo arrinka yar diidan oo dhinac taagan waxaan leeyahay Allah idin soo hadeeyo waxaan leeyahay waxba idin ka suuroobi maayaan waxa ku kacaysaan taana intaasan kaga tagayaa maxkamadda sarena waxaan u dirayaa fariin waxaan leeyahay dastuurka sharciga waa ka inuu isla garanaynaa iyana waxaan leeyahay sharciga iyay dhaafin cabashooyinka loo gudubsadaa macna keeni mayso waayo waxaynu haynaa dastuur waliba dastuurkaas wuxuu ku qorshaysan yahay mid waliba taariikh buu leeyahay iyo waqti loo qabto loo jaangooyay taana waxaan leeyahay maxkamaddu hawlan hayay faragelin lagu taariikhaysan tahay waa heshiisna waa lagu ahaa iyana qorsheedu waa sidaa